أزمان بركات الله شو راكسن هذا شرفت له وكوش عليه معلنكني برشا لغة إنجليشكا عشر كين ما أنتو إيوانكس حقوق ساسين حي my daily routine جدول كيغا مالين لا waxaan baran doonaa qaabka ugu fiican aad uga wadi kartid jadwalkaaga maalinlaha ah si fiican oo la fahmi karo marka ka hadlaysid jadwalkaaga maalinlaha ah waxaad raacaysaa use these simple 5 steps shantan talaabood oo fudud ayaad raacaysaa okay waa shan talaabood aad u muhiimsan waaye isku day inaad qoratid buugaagi mar walba u baahatid ayaad raacaysaa shantan talaabo marka ka hadlaysid jadwalkaaga maalinlaha okay talaabada koowaad waxa waaye start with what time you wake up waxaad ka bilaabaysaa waqtiga adiga aad soo toostid okay goormee waqti aad soo toostid ayaad sheegaysaa ma xilli hore soo toostaa ma hurdada ka daxdaa waxaad ka hadlaysaa waqtiga aad soo kacdid okay tusaale waxaa leedahay I usually badanaa wake up waxaan soo toosaa at halkaas waxaa gelinaysaa marka saacadda soo toostid okay ama waqtiga aad soo toostid kadib waxaa ku dari kartaa sababta aad soo toostid waqtigaasi okay وخطب أدو ميسون واي قد كلا هذا حواي say what you do in the morning واحد لحيسا وحياوها أتسميسيد سوبحي واحد كاد ليسا وحياو ميمسان سوبي مركز صوتوست أقواتيد أد كاد ليسا أوكي سلام حالات هاي in the morning سوبحي I أنيجا halkaas waxaa gelaysa marka 2 ilaa 3 shay adiga aqabatid marka suubiga soo kacid salaam waa dugta oo kale waa qubeysta quraan diyaariya shaqan aada waxyaabo muhiimsan aqabatid suubiga aad sheegaysa okay وقضب أدمي سوى إسقنا إن أسيب فانتال جارا alright قضب سداد حواي talk about your afternoon وحد كاد ليسا ظهر ذا كاد ليسا okay afternoon على استعمال كلام مرة ظهره مرة حلي كلا قلبي أكل على استعمال كلام okay مركب وحياة مين سأقبتيد ظهر ذا أكل أشياء جيسا سلام على هذا هاي in the afternoon ظهر ذا أكل I usually بدنا okay محاقة بتاع بدنا waxbaan bartaa ama shaqadan break ka soo qaataa waan qadeeyaa waan nastaa waan dugtaa waxa uu muhiimsan aqabatid ay sheegaysaa duhradii oo kale okay waqtidaas afternoon waxyaaba samaysaa ay sheegaysaa waa qodob aad u muhiimsan isagana qodobka afraad waxa waaye say what you do in the evening waxaad sheegaysaa ama aad dhaxaysaa waxyaaba badan aqabatid fiidkii oo kale ama habeenkii aad sheegaysaa okay marka maadaama jadwal laga hadlaayo wax walba aad qabanaysid ayaad ka hadlaysaa okay luqadda Englishka salaano kale in the evening fiidkii kale waxa leedahay ay aniga waxaan qabtaa okay ashaan sameeyaa quraan akhristaa family waqti la qaataa waxyaabo badan aqabatid ay sheegaysaa habeenkii oo kale oo jadwal ahaan aad samaysid okay orayna final jana waa qodob aad u muhiimsan waaye qodobka dambe waxa waaye end with how your day finishes waxaad kusoo gabagabeynaysaa maalinkaaga qaabka uu ku dhamaanayo okay qaabka uu ku dhamaanayo aad kusoo gabagabeynaysaa salaan at night habeenkii leedahay ay aniga okay waxyaabo badan aqoonta halkaas sheeyaysa oo muhiimka ah okay intaas seexanin ka hor quraan akhrista oo kale okay asxaabteena la sheekaysta oo kale badan waxay aqoonta sheeyaysa okay intaas seexan ka hor an kadib I go to bed waxaan seexdaa ad halkaas waxa gelinaysa marka saacada seexatid aad halkaas kusoo gabagabeynaysa marka waa qodob runtii aad muhiimsan waa daasifan u fahantiid oo wax badan aad ka fahmi kartaa okay marka qodobadas waxa waaye waxa loo isticmaalaa marka ka hadlaysid jadwalka maalinlaha ah si nidaamsan ayaad u dhigsan kartaa okay marka si fahmad qodobadaasi waxaad awood yeelanaysaa inaad ka hadli kartid jadwalkaaga maalinlaha okay horta safir doonaa tusaale anagoo waxa waaye dabaqayno qodobadii aan soo sheegnay okay tusaale waxa waaye waa woman speaking gabar hadlayso ay ka hadlaysaa jadwalkeeda maalinlaha okay haddii gabar tahay qodobkan ku anfacaya okay waxyaabo ay sheegayso si fiican u fahan jumladaha isticmaalayso qaabka waxa waaye uga hadlayso jadwalkeeda u fahan adoo waxa laga rabaa in mid noocan oo kale inaad soo samaysto okay waxay tiri I usually badana wake up waxaan soo toosaa at 5:30 shanta ibarka waxa waaye subaxnimo ayaan soo toosaa saacad markaa sheegaysid laba qaab loo sheegaa qaabka u fudud waxa waaye in tirada aad sheegid kaliya 5:30 shanta ibarka oo kana ayaa la yiraahdaa okay kadibna qodobkan soo waxay ahayd qodob koowaad in sabab aad ku dari karto okay because sababtoo ah I like waxaan jeclahay to pray fajr early salaada fajrka xilli hore inaad dugto ayaan jeclahay kadib waxay ka hadlaysaa marka suubi waxyaabo ay qabad in the morning suubi I clean a little nadaafad yaraan sameeyaa take a shower waa qubaystaa and make tea for iyo waxaan shaah u sameeyaa the family qoyska aan shaah u diyaariyaa marka waxyaabo muhiimsan ay qabato waay around 8 sideed markii la gaaro I go to my work shaqadan aada meeshaan ka shaqeynayo ayaan aada I work until waxaan shaqeeyaa ilaa 5 pm shanta galabnimo laga gaarayo ayaan shaqeeyaa so waxyaabo muhiimsan subax ay qabato ay ka hadashay waxyaabo badan aad fahmi kartaa okay adna waa isticmaal kartaa intaas way ka hadlaysaa duhurada oo kale in the afternoon duhurada oo kale I take a break fasaxira soo qaata to have lunch saan u qadeeyo oo aan qado cuno ayaan fasax soo qaataa maybe waxa laga yaabaa inaan cuno rice bread and meat
iyo hilib inaan cunaa laga yaabaa and relax a bit hoogaa inaan nasto markaan cuntada kadib aan ka baxo so intaas yar bareega ah waxyaalahaasaan sameeyaa duhurida oo kale sometimes mararka qaarkood I listen to waxaan dhegaystaa a short Islamic lecture khudbad yaraa iska dhegaystaa okay oo diinta ka hadlayso ayaan iska dhegaystaa marka intaas yar ayaan iska dhegaystaa marka duhurida intaas yaraan qabtaa ka waran marka habeenkaagii aad marka waxay ka hadlaysaa habeenkeedii ama fiidkeedii ka hadlayso waxay tiri in the evening fiidkii oo kale I eat dinner waa casheeyaa with my family qoyskan la casheeyaa and iyo read qur'aan iska akhristaa for 20 minutes 20 daqiiqo oo kale qur'aan iska akhristaa I also check my messages sidoo kale waxaan iska fiiriyaa ama aan fiiriyaa fariimaha la soo diro so waxay kusoo gabagabeynaysaa habeenkeeda waxay tiri at night habeenkii oo kale I brush my teeth ilkaha iska cadeeyaa make dua waan ducaystaa and sleep at iyo waxaan seexdaa around 10:30 saacad markay ku beegan tahay 10ka iyo barka habeenimo not a very exciting day uma muuqata maalin aad xiiso u ahayd uma muuqata markaa fiiris jadwalkayga but alxamdulillah laakiin ilaa maas kale okay intaas baadaan soo qabsaday ilaa maas kale okay marqaabkan ugu hadlaysaa jadwalkaagii si guud adoo raacayo qodobadii aan soo sheegnay okay waxyaabo ka bedeli kartaa hada si aad fiiristo okay hada si faahfaahintid qodobada alright waad la fiiri doonaa tusaale for men speaking markaan waxa hadlaayo nina hadlaayo okay so wuxuu ka hadlayaa jadwalkiisa maalinlaha ah okay haddaan nin tahay u fiirso qaabka loogu hadlaayo jadwalka maalinlaha okay so yeah I usually wake up waxaan soo toosaa at 5 a.m. shantaan soo toosaa I pray fajrkan dugtaa then I do a little exercise jimicsi yaraan sameeyaa maybe 10 push-ups waxaa laga yaabaa inaan sameeyo 10 push-up if I'm not lazy haddaan aajis dareemaynin markaa fiirisid marka wuxuu ka hadlay waqtiguu soo tooso iyo sababta u soo tooso okay kadib wuxuu ka hadli doonaa subaxiisa waxyaabo muhiimsan uu qabto in the morning subaxii I take a shower waa qubaystaa and go to work shaqada waxaan aadaa at 8 subaxnimo aadaa I drive a tuk-tuk shaqadeedu waxaa waaye waxaan wadaa mooto tuk-tuk aan wadaa ama bajaaj aan wadaa so I pick people up dadkaan soo qaqaadaa until around 12 ilaa 12 laga gaaray saacada dadkaan qaqaadaa oo mootadan ku qaadaa in the afternoon duhurida oo kale I eat lunch waan qadeeyaa relax nasiyan qaataa and maybe take a 20-minute nap waxaa laga yaabaa inaan iska seexdo 20 daqiiqo hurdo yar inaan qaato ayaa laga yaabaa okay marka cuntada una mala ka dhiganta ama nasiyan aan qaadanayo I also sidoo kale go back waxaan ku laabtaa out to work shaqadaan ku laabtaa until maghrib ilaa iyo salaada maghrib laga gaarayo shaqadaan ku dhex jiraa oo mootadaan ku laabtaa okay qaabkan u sheegaysa marka shaqadaadii waxyaabo badan aad samaysid jadwalkaagii soo ku hadlayaa feedkiisa in the evening feedkii oo kale I sit with waxaan la fariistaa my friends asxaabteyda at the tea shop meherada waxaa shaah lagu gadan la fariistaa or chat with my brother ama haddaysan dhehen waxaan la sheekaystaa walaalkayga okay so waxaa u muhiimsan ayuu ka hadlay feedkii oo kale uu sameeyo wuxuu ka hadlaya ama uu kusoo gabagabeynaya habeenkiisa at night habeenkii oo kale I check social media a bit ogaa social media waxaa waaye iska fiiriyaa then go to sleep kadibna waxaan seexdaa at 11 ama 5 saac kalaan seexdaa habeenkii unless haddii kale I'm watching football waxaan daawanayaa kubad haddii aan xilligaas soo jeedo waxay ka dhigantaa marka unless waxay ka dhigan tahay I'm watching football inaan daawanayo kubadda cagta so jadwalka markaa fiirisid waxyaabo badan uu ka hadlay waqtiyo badan uu ka sheekeeyay so waxaa laga yaabaa waqtiyaas badan inay jiraan waxyaabo kale aad samaysid so isku day inaad soo samaysid okay qodobka muhiim waaye adigoo raacayo qodobadii aan soo sheegnay alright oraa soo gaarnay qaybtii mirror practice waa qaybtaadii waaye isku day meelaha banbanaan jumladahan inaad ku buuxisid waxa ku habboon okay oo jadwalka ay ku saabsan jumlada koowaad I wake up at waxaan soo toosaa halkaas waxaa gelinaysa waqti aad soo toostid ayaad gelinaysa halkaas kadib waxaa ku daraysa sababta aad xilligaas usoo toos okay salaam kale waxaan soo toosaa 6 subaxnimo saan waxaa salaada fajr u dugto sababta raacinaysa okay jumlada labaad in the morning subaxii aniga halkaas waxaa gelinaysa marka 3 shay oo muhiim ah oo badan aqabatid markaa soo toostid subaxii ama subaxii aqabatid okay salahan waa qubaystaa quraan akhristaa shahan aba shaqaan aada waa muhiim halkaas gelinaysa okay jumlada saddexaad in the afternoon durida oo kale I usually badana halkaas waxa gelinaysa marka waxa badan aad samaysid English aan bartaa oo kale cuntaan sameeyaa laba shay halkaas gelinaysa badan aad samaysid okay waa soo gaabanaysa jumlada afraad in the evening feedkii oo kale aniga halkaas waxa gelinaysa marka badan waxa samaysid okay qoyskan waqti la qaataa waan nastaa waxa badan aad samaysid halkaas gelinaysa feedkii oo kale ugu dambeyn marka at night habeenkii aniga halkaas waxa gelinaysa marka waxa badan aad samaysid habeenkii okay
kadib waxaa kusoo gogoynaysaa aan go to bed waxaan seexdaa ama aan seexdaa aad saacada ka gelinaysaa marka waqti aad seexatid okay qaybta hore waxaa gelinaysaa waxyaabo badan aad qabatid intaas seexan ka hor ma telefoonka fiirisaa ma quraan akhristaa ma ducaysataa ma asxaabtaada wacda maxaa samaysaa kadibna waqti aad seexan halkaas gelinaysaa okay waa qayb aad u miisan waaye marka aad dhameysid aad buuxisid isku day jumlad walbo inaad si fiican waxa waaye aad u fahantid micnaheedii iyo qaabka loo akhrinayo okay marka intaas aad fahantid isku day marka inaad muraayada hor istaagtid adigoo aanan buug ka fiirsanaynin in jadwalkaagii qaabkaas aad ugu wadashid qaabka u buuxisay inaad ugu wadashid okay so waa qayb aad u miisan waaye waxaa la yidhahdaa mirror practice okay adaas kale qaybtaas alright waxaan soo gaarnay qaybtii u dambeeyay sheekada maanta qaybtan waa challenge task waaye isku day su'aalahan oo ku saabsan jadwalka maalinlaha ah inaad ka jawaabto okay marka hore buugaa qor su'aalaha kadibna waxaa waaye kasoo jawaab group soo dhig adigoo akhrina jawaab okay su-aasha koowaad what time do you usually wake up waqti ama goormee soo toostaa badanaa goormee soo toostaa waxaan soo toostaa waqtigaas aa leedahay kadibna soo taraayna su-aasha labaad what do you do right after fajr salaada fajr markaa ka baxdid badanaa maxaa samaysaa manaafad guriga qabataa ma jimicsataa badanaa maxaa samaysaa su-aasha saddexaad do you eat breakfast every day maalin walba quraacdaa mise qoraad waa ka boodaa okay badanaa waxyaaba cuntid waa sheegaysaa okay su-aasha afraad what is your afternoon like ka waran duhuradaadii qaab noocee waay duhuradaadii ka waran ma shaqaysaa mise waa nastaa duhurada oo kale maxaa samaysaa su-aasha shanaad do you use your phone a lot in the evening fiidkii oo kale badanaa telefoonka miyaa isticmaashaa ma isticmaasha telefoonkaagii haddaad isticmaalin hoogaan isticmaal dhigi kartaa waxaan ku baartaa masajada ama waxbaan ku daawada waxyaaba badan aad ku samaysaa sheegaysaa okay su-aasha lixaad what time do you go to sleep goormee seexataa saacada goormee seexataa waxaan seexdaa 10 ama ilaa 11 okay marka waqti aad seexataa halkaas aad gelinaysaa sheegaysaa okay su-aasha dambeeda do you feel busy mashquul miyaa dareentaa ama mashquul may kula tahay oo relaxed ama nasiinyo during the day maalinkaagii ka waran mar walbo mashquula mise maalin iska degan waay okay marka kaadis maalinkaa waxaa leedahay maalinkii mashquul waaye marka qaarkood saan waxaad kaadaysa marka si guud qaabka uu yahay maalinkaa okay waa su-aal aad u miisan waaye aad ku baras garan kartid englishkaagii marka kaadaysid jadwalka maalinlaha isku day inaad kasoo jawaabtid su-aalahan bugaa kusoo qor jawaab waxoodii kadibna group soo dhig adigoo akhrina cashirka halkaas ku egyahay inta cashirkiisa horkulmi doono waxaan intaa salaamta barakaatu